ومالك مسكحدي دونيدو ملاسن موجده هيدا مسكحدي دونيدو ملاسن موجده هيدا كلام يرتي معني سيماركي قرسونا كلام يرتي معني سيماركي قرسونا ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مبدقي كميري ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مبدقي كميري مرتدى دوح أقونتيسا بارو لغا مارمي مرتدى دوح أقونتيسا بارو لغا مارمي هموغان تاريخ ذا معلم waxay tahay magac sharaf ixtiraam iyo meel kasta uu tago macalinka fadhiga ayaa loogu istaagaa waxaa ammaan mudan macallimiinta isxilqaamay oo markii xukuumaddii burburtay dugsiyada iyo jaamacadaha soo nooleeyay oo ka dhiibiyey inay waxbarashada daadka qaado carruurta soomaaliyeed oo xasilooni darada iyo kala dambayn la-aantu dhalasi ku eegan waayey inay u barbaareen jahliye inay ku barbaarin jahliye iyo aqoon la-aan dagaalka aaminaha dhalayay macallimiintu sameeyeen markii uu burburka dalka ka dhacay kadib waa sida roob loogu toogsaday waayo hadduu qofku eegan lahaa gacmo la isqorsaaran lahaa dhalinyaro aad u fara badan fursad aysan haysan lahayn aysan heli lahayn maanta iskuul iyo jaamacadna kama soo bixi lahayn sida maanta iyo cayman lahayn dalka oo dhan wuxuu noqon lahaa qof xabad ridayo iyo mid ka soo ridayo maalinta dalka iyo macallimiinta dalka iyo dadkaba way macalinkeenu waa maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday mugdiyo jahliga isaga masaxaye masaxaye mugdiyo jahliga isaga masaxaye masaxaye macalinkeena alloka maskaxdaada mugdiga buuxdo macalinkaale waa macalinkaale maskaxdaada mugdiga buuxdo macalinkaale waaro macalinkaale cilmi buuxdo macalinkaale waaro macalinkaale إنا لما متالي إنا لما متالي ولا يقبل آمين ولا يقبل dhaqaale intaas leh sidaas u shaqeysa maxaan ku raayay sheeg injineerad ah ama doctor hebel ama maxaan ku raayay dhaqaale yaqaan ama professor hebel hadda caqabad ay keeni kartaa waxa ognahay in fiirso asla fahna intaas asla fahna waa qodobka maanta ah isla in faa'iideysan isla yahay marar badan hore idinku sheegay haddana maxaan ku raayay si guud aan ugu sheegaynaa idinku sheegay arrintan arrin muhiim ah waa in la ogaadana aad u fiican tahay ogow qof aan waxba baranin ayaa dhaqaale badan samayn kara adoo injineer ayaa laga yaabaa in maxaan ku raayay sheeg aan waxba qabanin ayaa laga yaabaa waxa laga yaabaa qof aan weligii waxba baranin inuu bilyaneer yahay adduunyadana waa la arkaa waa jirtaa waxa ku bees gareenin dhaqaale waxa arkaysa ardayda qaar markay weydiiso tiraa ka waran ama markay dhammaan dugsi sare kale waxay ku leeyihiin jaamacadaha rabnaa maxaa dhaqaale ka samayn karnaa maxaan dhaqaale ka samayn karnaa xagee dhaqaale laga helaa waxbarasho kasta waa inaad yool ka gaartaa muhiimadda intaas oo taasaa sharaf ah isla faana umaleyna haddowna aadan shaxaad dad aadan weydiinin shaqo kasta soo baxdo oo ah shaqo xalaal inaad qaban karto inaadan dhihin diktoorka wadnahan ahay haddana shaqo ma jirto sidaa daraaddeed yaa meelaha dhaqaatiiro meelaha kama muuqdo kadibna tiraad xoogaa wax ilaa aniga shaqadan ma qaban kareen arrin ayaan darro ah waa inaadan dhihin hadda ka hor macallin ahaan jiray
macalnimadii wax walba dhici karo waxa laga xataa awooddaada inay naaqustaa laga yaabaa maadaama awood badan ay ku baxayso inaadan dhihin sharafteeda ka weyn arrintaas inkastoo ammaan badan macalinka si badan siyaabo badan loo ammaantaas dhibaato keenaya laftirkeeda u wanaagsan ammaantaas hala yareeyo ilaa xad haddii la yareyn karo oo yareynaysiin hala yareeyo taas waa taas qodobkaas waa gudbi karaa yaa maadaama xilli kulula lagu jiro maanta kadib ha ku bees gareenin waxbarashada ha ku bees gareenin dhaqaalaha ha ku bees gareenin inta macallimiinta abaalkooda ma gudi karno waayo maxaa yeelay meherkana gaarsiiyeen iyo intayna galeenbo in aan gudi karno ma ahan waayo maalinka inta imaanayna waxaan imaan anagoona wax akhri karin anagoona wax qori karin aan imaano maantana waxaan nahay dad wax akhri karo wax qori karo iyo bulshada wax u tari karo abaalkooda ma gudi karno waxaan leenahay hambalyo 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 aabaha labaad ee ku hoolan gacan qabsiga iyo gargaarinta tarbiyada waa daadiyaha kugu hayaan wadada toosan ee aqoonta iyo ilbaxnimo laga hortago jaahiliinta ogaada aqoon la'aan oo iftiin la'aan waa aqalgii laislaan ogaada walaayaal aada dugsiyada eeg madaxweyne haddaad noqoto wili macalin fasalku buu dhex fadhiyaa haddaad noqoto agaasimo macalinkiis buurud buu wax qorayaa haddaad noqoto maaree wili macalinku sidiisuu maskaxda sid buu ku jiraa oo ka holan yahay cilmigiis meesha ku qaadanayaa inta ka arsan noloshiisa qof walbaba nolosha dib u eeg oo haddiiba aan nasiib u yeelatin oo macalinku soo istaago waxaa dhowsid mudabarayaashii halgantii macallimiinta isku soo hoolanin ka hor kasoo tayada waxbarashada ee geyiga Soomaaliyeed iyagoo aan tiri koobi karin waxqabadka macallimiinta Soomaaliyeed haddana waxaan tusaale soo qaadanaynaa qaar ka mid ah sida Sheekh Yuusuf Alqoonin oo shaqalkii albaad carabiga ahaan oo dhigay afka Soomaaliyeed oo yiri alif ku dhigal fasl wal faaqoodi iyo waliba macallimiinta qaar ka mid yihiin midka aad u badan Maxamed Ahmed Ali macallin jaamac Bilaal iyo qaar kale badan ugu dambeyn bariyaasha Soomaaliyeed waxaa leeyahay intooda dhimatay naxariista janna Allaha siiyo intooda waxaan wajeenayaa nabad iyo ضرورة نمعين قاعدين برافو مسنا هنبلي معاك معلمين صوماليات كل عندكم ومالك مسكحدي دونيدو ملاسا موجده هيدا كلام يرتي معني سيماركي قرسونا كلام يرتي معني سيماركي قرسونا ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مبدقي كميري ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مبدقي كميري مرتدى دوح أقونتيسا برو لغا مارمي مرتدى دوح أقونتيسا برو لغا مارمي هم وقانين تاريخ ذا معلي هاي هم وقانين تاريخ